الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مدن عيال iyo marwooyin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa shaqeeya in maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha 8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hogaamin doono insha Allah. mudan ayaal iyo marwooyin walaalayaal, dadkeenu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad. marxaladan adag waxaa laga maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. mudan ayaal iyo marwooyin walaalayaal, wada tashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda. waxaana rajaynayaa in ay ku guulaysan doonaan in ay Soomaaliya cusub ay dhaba cusub u jeexaan, ayagoo aan aaminsanahay in ay hirgelin doonaan barnaamijka weyn iyo aragtida weyn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo halku dhagiisu yahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la. waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si degdega u horkeeni doono. ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan. aad iyo aad u mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله.